hadda kadib kaama yeeli dooni wax ma akhrin kari wax ma kicin kari erey kasto aan arko ma kicin kari hadduu igu cusub yahay iyo haddii hore aan u soo mar hataa shakiya igu jiro waxaas way kaa dhammaadeen waxaan ku bilaabi doonaa phonics alaab yidhaahdo waxaa lagu bartaa yacni phonics waxaa laga wadaaba kicinta ereyada kugu cusub iyo kuwa hore oo u soo aragtay oo ay ilowday inaad kiciso baad ku baranaysaa waxaan ku tusi doonaa sharciyo badan oo dhawaaqyada lagu kala turjumi karo ama adiga aad ku miisaami kartid haddaad aragto ereygan xitaa hadduu kugu cusub yahay waxaan ku bari doonaa qaab aad ku miisaami kartid sida adi aad u malayso haddana kuu noqon doono ayaan ku bari doonaa waxaa loo yaqaan alaabtan phonics alyada kicintaa ku baranaysaa waliba waxa waaye waddo fudud qaab fudud muddo gaaban ku baro waxaan baran doonaa shaqalada ayaan ku bari doonaa shaqalada keligood waxaan ka diyaariyey 50 ilaa 60 cashar baan ka diyaariyey buuggooda haddaa u baahan waa soo dalban kartaa intaan waxaa ka helaysaa meel lagu dhigo ma jirto soomaaliya car soo saara dhawaqaan meel lagu barto soomaaliya ma jirto adduunka meel ay ka jirto ma lahan alaabtan waxaa waa special fiiri marka xarafkan ee haddaad aragto qaabo badana loogu dhawaaqa qaabka koowaad fiiri marka xarafkan ee haddaad aragto waxaad ugu dhawaaqaysaa markii soomaali ahaan la joog dhawaqa a ahaan ugu dhawaaq waayo are you getting maxaa ugu dhawaaqaynaa a ahaan ugu dhawaaqaynaa for example bat mujadido aadaan ku dhex jirta marka ingiriis ahaan waa ee moogtahay soomaali ahaan waa a ahaan ugu dhawaaqaynaa waa bat cat map shaxda hal mar ay fahmaysaaba back dad iyo rat waay bat waxaa la yidhahdaa fiidmeer ama waxaa la yidhahdaa kibiliga waa taqaanina xayawaanka cat waa bisada map waa khariirada bag waa boorso dad waa aabe ratna waa jiir ama dooliga saa u taqaanaanba marka muhiimaddu waxay tahay xarafkan eedan ku dhex jiro maxaa a loogu dhawaaqay waxaasa kaa guuxay waa ogahay laakiin waa ku sheegi doonaa sababta loogu dhawaaqay a maxay tahay xarafka u dambeeya u fiirso dhammaantood waa shibane xaraf dhawaqaan samayn karin waa shibane aamusne waay maadaama shibane uu yahay soomaali ahaan la u akhri ma erey kasta way la ima hadaarad erey kasta oo english ku jira shibane hadduu u dambeeya looguma dhawaaqo waa bat cat map bag dad rat soomaali ahaan la u akhri mujida bat waa qaab soomaali ahaan cat waa qaab soomaali ahaan map marka haddii shibane u dambeeyo soomaali ahaan u akhri marka xarafka ee loo fiiri shaqalkan ee qaabka koowaad aan ugu dhawaaqni waa a qaabka labaad u fiirisa haddana haddii aad aragto xarafkan ee english ahaan waxaa ugu dhawaaqaysaa e ahaan ugu dhawaaq soomaali marka la joogo dhawaq ahaan waa e ahaan ugu dhawaaqaynaa goormee waa arki doona horta tusaale fiiri name xarafkan eeda maxaa ugu dhawaaqaynaa e ahaan mogda name cake face fake game with name waa maga cake waa doolisho face waa wejiga fake waa been game waa cayaar ama ugaarsi wave waa hir ama sabayn ama haatin gacan haatin way hi I'm waving at you waan ku haatinayay maanta dhan soo marka waxaa waaye name maxaa eedaan ee loogu dhawaaqay waan ku fahamsiina xarafka u dambeeya keenay in kan ee loogu dhawaaqo iidaanaa keentay waay shaqal hadduu u dambeeyo english ahaana ugu dhawaaqaysaa waayo kan xarafkan waa ee english waay english ahaan ugu dhawaaq haddii kan laga tiro fiiri marka soomaali ahaan u noqona waayo shibane ayuu u dambeeyaa waxaa leenahay naam aan dhaynaa haddii aad fiiriya kan haddana ii aan ka darna kaak ay kaa noqonaysaa maxaa u dambeey shaqala u dambeey sidaas daraaddeed waa ku dhawaaqaynaa name cake face fake game wave mujeda xarafkan dhexdu ku jiro dhan ee ahaana ugu dhawaaqanay sababtana waan kuu sheegayo xarafka u dambeeya keenay oo shaqalka ah keenay waa haddii xaraf shaqal uusan u dambaylen qaab soomaali ahna u akhrin lahayn labadaas shuruud hayso alaabta ma lehel waa kuu sheegay aniga haddii uu ka maqnaa saaxiibka casharkan dhawaqa dhibi jiray kicinta ereyada miisaankoodan ku bari doona haddii kadib calaa dhigi jooji marka ka faa'iidayso adile haddana fiiri isla ee oo loogu dhawaaqi doono oo loogu dhawaaqi doono ku bari doono easy ee haddaad aragto maxaa ugu dhawaaqaysaa oo ahaan ugu dhawaaq tusaale fiiri ball call all always small dhahdana way geli kartaa yaa horeyna way geli kartaa gadaal small tall yani xarafkan eedan dhexda ku jira ujeeda fiiriya ama horay waxaa ugu dhawaaqaynaa oo ahaana ugu dhawaaqna marka ball call all always small tall ma dhahayna baal ma dhahayna ahaana looma dhawaaqna mise beel ma dhahayna maya oo ahaana ugu dhawaaq tan sabab rasmi lagu garto astaan ma jirto laakiin waxaa ku kala ogaan kartaa ereyo badan oo loogu dhawaaqay inaad aragto ayaad ku kala saari kartaa mana badna xaraf walba sabab haddaa u weyso ma tira badna way koobiyin inaad fahanti bis ay u baahan tahay macnaha
ball call all always small tall maanta kadib marka calaacarkas waa ku daay brother haddi kadib wax ma kicin kari wax ma akhrin kari ka cisa dhibaya haddaan kaa yeelo